dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijkeena ganacsiga iyo dhaqaalaha toddobaadkiiba hal marka dhaataan nuqbaya caalamiga ee Soomaali TV barnaamijka alaabo waxa idin la socodsiisaa anigoo Fardoos Muxiba barnaamijka galabta waxa inoogu martiyaa Cabdi Samad isla markaasna noogu marti qaaday meheradiisa bilixsan Cabdi Samad ku soo dhawo barnaamijka ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Soomaali TV waan dhawahay walaalaad mahadsantiin adiga anagoo kaaga mahadcelinayna sidaad waqtigaaga noo siisay isla markaana noogu soo dhaweysay meherada bilixsan xilli ma la aasaasay waxaa la aasaasay 2015 qaybtan waa sidaan wada arkayno waxa weeyaan waxa lagu iibiyaa dharka dumarka iyo caruurta ma la oran karaa bilixsan waxay leedahay qaybo kale oo sida qaybo rag ah ama qaybo kale oo iyagu kuwana kale laakiin aan meeshan may walaalo ma jiraan halkan oo kale waa meheradan oo kaliya dharka dumarka iyo dharka caruurta ayaan baan iibinaa ma jiraan discount aad u samaysaan dadka macaamiisha aad kaga duwan tihiin meheradaha waqtiyada xilliga iid soo galayso kale way jirtaa waan sameynaa sidoo kale meheradu ma heshaa wax maalgelin oo sida bangiyada ama shirkadaha waaweyn oo kale markii aad meherada aasaasayeen ama la daahfuray iyo ilaa imka ma la oran karaa bilixsan wax lagu soo kabay maalgelin walaalmay ilaa bilowgii ilaa imka waa meherad isku filan iyadoo bas ku filan marka wax maalgelin wali ma aanan baahan ma aanan dalbana waxaad iibisaan dharkan agabkii dumarka u iibisaan iyo caruurta markaas ma ku tala jirtaan inaad ku dartaan qayb kale sida qayb ragaayo kale ama waad ku soo kordhisaan muxuu haayay meelo kale oo ay bilixsan ku leedahay magaalada Quraacada insha Allah magaaladay ku xidhan tahay haddaan magaalada ka aragno waan rajaynaynaa laakiin imika intaan waxayna daawadayaal waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkeena ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Soomaali TV adigoo ka faa'iideysanaya fursadda maadaama aanay jirin wax shaqo abuur dalkeena ka jirin maxaad u dir lahayd dhalinyarada reer Soomaaliland ee jecelnay fikir ganacsi sameeyaan isla markaana ay caqabado haystaan walaalahay aad baad mahadsantahay way jiraan caqabado badan oo dhalinyarada haysta xaq ganacsiga ka haysta laakiin ganacsigu wuu fudud yahay wax kasto imika dalkeena gudihiisa la isdhaho ku shaqeysta ama ganacsi ka bilaabo waa laga shaqeysan karayaa marka haddii iyagu dhulkooda hoos u eegaan oo arkaan de kabaha iyo kariyonka halka ay la fadhiistaan ma ganacsi buu noqonayaa waa tahay Cabdi Samadow bilixsan iyadoo ku dheedan ma leedahay wax shaqo abuur oo dhexda ka socda sida inay shaqaalaysiiso dhalinyarada oo kale ama ay shaqaale cusub qorato oo ku soo biiran walaalay ma jiraan oo wali meel weyn oo maaha baraaj weyn maaha oo waa meherad kooban weeyaan marka waqtiyada iidoo kale iyo waqtiyada dhalinyarada waan shaqaalaysiinaa oo de waqtiga suuqu furan yahay laakiin shaqo abuur ma laha laga dhaqsameeyo gudaheeda ma jiraan wax idinka caqabadaha idin kala kulma sida dhisaynkii oo kala go'o kale oo dadkii macaamiisha idin balasan yihiin oo kale ama caqabadaha idin kaga yimaada xagga alaabta marka diranaysaan oo kale inay idinka soo daahdo ma jiraan waanu dirsanaa alaabta waqtigaan ugu talagalayna way noogu timaadaa waayahay daawadayaal intaasi ayuu inoogu eegyahay barnaamijkeena ganacsiga iyo dhaqaalaha toddobaadkiiba hal marka dhaataan nuqbaya caalamiga ee Soomaali TV tan iyo intaan barnaamijka xiga ku kulmi doono waa aniga iyo dhammaan howlwadeennada Soomaali TV oo idin la sidaa iyo nabadgelyo